dhacdo ugub ah oo la yaab leh ayaa laga hadlayaa dhammaan dhulalka islaamka maanta xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidee ayuu u dhacay dilka labadan wiil ee xaafidul Quraanka ahaa imaamyadana ka ahaa masjid ku yaala gudaha Mareykanka, kuwaasi oo xalay la toogtay? Sidee ayay wax u dhaceen? Sababta ku qasabtay in wiil uu dilo walaalihiisa isaga ka yaryar, kuwaasi oo imaamyo ahaa? Tirada xabadaha uu ku dhuftay 10 sano ka hor xaaladda qoyskan siday ahayd, kufsigii walaashoodu u geystay aabahood, bilow ilaa ay dhammaad qisada qoyskan kufsi dartiis u wada halaagsamay. Marka hore, allaha u naxariisto walaalaheena muslimiinta ah, si dad badan ay ugu duceeyaanna muuqaalkan like saar, una share garee asxaabtaada kale ee Facebook, adigoo ogaan kara qisada ka dambaysa in wiil uu dilo 2 wiil oo ay isku hooyo ahaayeen. Magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka waxaa lagu dilay 2 wiil oo ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed, da'doodana lagu sheegay 14 iyo 16 jiro, sida ay sheegeen booliska iyo qaraabada marxuumiinta. Dhalinyarada dilka loo geysto oo walaalo ahaa ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdiraxmaan Xuseen Cabdicasiis iyo Cabdiwaaxid Xuseen Cabdicasiis, waxaana dilka u geystay walaalkood ka weyn xilli ay ka soo baxeen salaadii taraawiixda oo ay iyagu imaamyo ka ahaayeen, sida ay goobjoogayaashu xaqiijiyeen. Xanad Cabdullaahi Cabdicasiis oo ah ninka dilka geystay ayaa wiilasha uu dilay xagga hooyada walaal kala ahaa, waxaana wararka ay sheegayaan in bannaanka guriga ay ku noolaayeen uu ku dilay labada marxuum xilli ay masaajidka ka soo baxeen. Qoraal ay soo saareen booliska magaalada Kansas ee cariga Mareykanka ayay ku sheegeen in abbaara 11:30 habeenimo jamaacada masaajidka la soo wacay kadib markii uu dhacay falkan toogashada ah. Booliska ayaa markii ay goobta soo gaareen waxay arkeen 2 wiil oo meyd ah. Xanad Cabdullaahi Cabdicasiis oo 25 jir ah laguna tuhunsanaa inuu dilo wiilasha, iyo boolisku isku dayeen inay gacanta ku qabtaan, kadibna dagaal ayuu sameeyay, waxaana taasi ka dhalatay in la toogto. Dhacdadan oo dadka ku dhaqan gobolka Kansas City ee dalka Mareykanka iyo dhammaan muslimiinta maqli qabarkaasi aad uga wada naxeen ayaa sidoo kale lagu faafiyay baraha bulshada. Muuqaalada baraha bulshada lagu baahiyay wiilasha geeriyooda waxaa ka mid ahaa iyagoo salaadii taraawiixda tujinayay, waxaana la tilmaamay inay ahaayeen kuwa xaafidul Quraan ah oo ka mid ah jamaacada masaajidkaasi ku xirnaa. Taasi waa falkii xalay dhacay, laakiin maxaa ka dambeeyay falkan uu dhaco? Maxaase keenay in qoyskan ay gacmahooda isku laayaan aabe, hooyo, wiilasha? Falkaasi oo bilowga ka dhashay kufsi uu aabbaha u geystay gabar uu hooyadeed qabo. Qisada qoyskan ayaa noqonaysa hooyo ninkeedii dhintay oo haysatay 2 carruur oo kala ah wiil iyo gabar ayaa waxaa dumaalay nin la dhashay ninkeedii hore. Ninkii dambe waxay u dhashay 2 wiil, waxay noqdeen reer haysta 4 carruur ah. Waa 2dii hore oo ay hore u soo dhashay ayaa 2da dambe uu dhalay ninka hooyada dumaalay. Ninkii hooyada dumaalay ayaa kufsi u geystay gabadhii yareed oo adeerku u ahaa, sida la sheegay, oo weliba xaaskiisu ay dhashay. Hooyadii ayaa arrintii ogaatay, waxaanay ku dacweysay dowladda. Ninkii markii uu ogaaday in la dacweeyo oo arrintu ay maxkamadeen gaartay ayuu dilay hooyadii isagoo u adeegsaday dad gaangeystara ah. Carruurtii isagu aabbaha u ahaa iyo kuwii adeerku u ahaa waxa uu dhigay hooyo la'aan. Ninka waxaa xiray dowladda, falka dilka waa lagu waayay, kufsigana xabsi dheer kadib waa laga soo daayay, sida ay wararku sheegaan. Haddaba haddii hore hooyadii u dhimatay, gabadhiina uu odagu kufsaday, maxaa xiga? Wiilkii carruurta ugu weynaa oo gabadha la kufsaday, hooyo ku aabba ah, ayaa xalay masaajidka hortiisa ku toogtay 2dii wiil ee la dhalatay oo ninka adeerkiisa ahaa ka dhalay hooyadiis, kuwaasoo iminka ahaa 2 imaam oo masjidka ka tujiya, isagoo weli caloosha uga hayay wiilashaas cuqdadii adeerkiis maadaama uu hooyadiis dilay walaashiisna kufsaday. Wiilkii weynaa oo ah gacan ku dhiglaha xalaytu dilka geystay ayaa isagana ku baxay gacanta booliska. Saacadihii la soo dhaafay arrintan ayaa si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada Soomaalida. Guud ahaan Soomaalida ayaan aad uga falceliyay arrimaha noocan oo kale ah, waa kuwa Soomaalida ka dhacay inta badan, waana mid sababta hadalhayn weyn. Qisada qoyskan waxaa lagu tilmaami karaa qisada qoyskii kufsi dartiis dhammaantood u wada halaagsamay. Ilaa dhamaadka haddii aad nala joogtay, muuqaalkana like saar u share garee si qisadan ay dad badan u ogaadaan, isla mar ahaantaana ay uga xibir qaataan.